dhalinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow maalgelin badan la soo geliyo wax la soo barayo la soo barbaariyay ayaa la yiri dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidan aan noqonaysaan dalka difaaciisaan qaar waxaa la yiri fursad la'aan iyo baagamuundo shaqo la'aan idin haysa shaqan idin geynayna waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan mageen ka baxayn la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaam maqan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaram muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa wili ma aqbalin Eritrea dhalinyaro u dirna xataa wili ma aqbalin iska daa Eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaas mas'uuliyad ma aha sidaas dadnimo ma aha waxa la qarinaya waa maxay wax si qalad loo sameeyaa la qarinaya waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacadda soo istaagay dhalinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dawladda iyo ragga siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhalinyaradu ay bixis xilalka hay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas'uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagan maalin walba oynayahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin annagaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan dhahno codkeena ku biirino dhahno war waa arintaana jiro madaxweynihii hore maxaan ku raahdaa iyo xukuumadda dhammaanteed iyo maxaan ku raahdaa hogaankii ama kuwa hadda jooga dayin iyo kuwa biriga jooga ciidamada qalabka sida intaba waxaan ka dalbanaynaa dhalinyaradaas xaaladooda iyo warkooda inay keenaan inay sheegaan meesha tiradooda intaasay ahayd ujeedadaasay loo qaaday ama dalka looga qaaday maantana xaalkoodu waa sidaas maalin hebelay soo noqonayaan waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba wadada taagan ee cabanaya ee oynaya ee muxuu ahay hurdo iyo hooyaad ka tegay waa inay u sheegaan dhammaanteen hooyo aabbayaalaan nahay ma raalli kama noqon karno wax kastoo dhacay ilmahanagi inaan meel ku ogaan weyno ama aan muxuu ahay war dalkan yaa dalba oo yaa kuladii la dhihi jiro yaa iska leh haddii ilmaheenniina saas aanan madaxda UN-ka hadda ka hadlooha jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka hadloohayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaaliya laga qaado Eritrea tababar loo geeyay dagaal inay ka galeen Ethiopia dhexdeedii aksum iyo meelaheeda ay ka dagaalameen aan soo ogaanay wararkaasaan helnay leeyihiin ayaga raadiyo ka warramoha dawladdeena maxaa ku dhacay maxay uga warrami laadaay war xataa wiilasha meeshaan u dirnay dagaalkaas waa galeen anagu umaana dir hayiraha in kara haday doonaan waa u dirnay dalaan saaxiibna lahayn wax ka difaaciyaan dan Soomaalida ku jirtay ha noo sheegaan ha noo qanciyaan laakiin waa in laga hadlaa in laga aamusahay ma mudna in laga aamuso ma mudna marka maalina in oo wiilasheena iyo caruurteeni jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay noo sheegto maalina dalkeena dekadaha uu bixinaya iyo maxaan ku iraahday heshiisyada caalamiga u galayahay ay madax tale oo dalal kale madax ka ah ay noo sheegaan nagama qabato mas'uuliyadda iyo madaxda dawladda ee maanta joogta iyo kuwa shalay joogay intaba nagama qabataan leenahay dawladdu iyo madaxdu waa kuwa dadka soo hor istaaga oo u sheega runta hadday kharaar tahay xataa waa loo sheegaa waa wax jira oo adiga aadan qarin maanta aad qarinay biriyaad qarinay maalinta dambe intii hore ayadoo kasii kharaaray imaanay sheeg aan leenahay madaxweynihii hore iyo tiimkiisa iyo xukuumadda intaba shacbiga Soomaaliyeed arinta dhalinyarada Eritrea
ma qarsoomi karto ha ka hadlaan ha hor yimaadin dadka ha u sheegaan runtu hadday kharaar tahay xataa ha u sheegaan wax dhacay waaye hadday dhinteen waa la dhima jiray hadday nool yihiinna inay keenaana laga rabaa soo celiyaan dalka soo celiyaan ayagoo ciidana ku soo celiyaan ciidan ha ahaadaan haddii ayan ahayn ha noo soo celiyaan